aabba kaliya ima ahane saaxiibkeen uu ahaa walaalkayga uu ahaa geesigaygan uu ahaa aadan u jeclahay waa ku salaami satya waa qaadi waa ka baxsatay wiilkaygu आँखों के तारे ओ मेरे सहारे आँखों के तारे ओ मेरे सहारे बढ़ना लिखना आगे बढ़ना आँखों के तारे ओ मेरे सहारे जीने की तू है वजह तुझ में मेरी जान रोशन तू करना जग में मेरा नाम खुश रहना मेरे दुलारे आँखों के तारे ओ मेरे सहारे पढ़ना लिखना आगे बढ़ना आँखों के तारे ilmihiin inta taagan waxa idin sheegaya Britore lacagta iskoolka idinka wadin waxa isku soo ceebeenay inaad iskoolka timaadaan أنا سيداس بيقول هل ذكرت يا أبي كنا سيدا وين واي لعبت شيء سنة هل سكن أسكو ديبها على أساس إنه ولا شيء ما hadduu aabbaha ganacsada weeye muxuu kaaga dhiibi waaya sababtuu kaaga dhiibaa weydii asaga macluumadda markaa ii sheegtay shakiyaa gel aniga waan soo baxay si dhumashan aabba ku fiirinaya waxaan arkay aabba gaarigiisa oo qof kale siinaya asigana iska baxay anigana waxaan sameeyey aabba ayaan soo dabagalay aabba subax walba wuxuu umaleeyahay xafiis inuu aadaya laakiin xafiis ma aadi jirin magaalada ayuu shaqo ka raadsan jiray mar makaanig ayuu nafqanaya wuxuu raadinayay raashiin aan cunno oo keliya marna foorno ayuu ka shaqaynaya meeshaas maxayd meel aad iyo aad u kulul mararka qaar wuu iska shaqaysan jiray howlo yar ayuu iska qaban jiray laakiin marka dambe howlihii yar xataa wuu qaban jiray wuu waayay asiga mar walba aniga raashiin ayuu qasbi jiray laakiin marka dambe heer wuxuu gaaray asiga oo dhuudhuumasho raashiin ku cuno dadka markay gurigeenna imaadaan aabba buuqa ayuu ilaalin jiray maalin maxaa dhahay alaabta dhan in laga qaato laakiin aniga go'aan waxaan ku gaaray aabba wax walba run ah inaan ka ogaado أبي شقد إنه أنا قبل سمعتها كنا سيدا يعاوني ninka aan shirkada ahayn ayaa i khiyaanay sababtoo aniga ayaa ka khibrad badnaa sidaas darteed ayuu ganacsigayga hoos ugu dhacay shaqooyinkanna si aan nolol maalmeedkan u helno ayaan u qabanayaa wiilkaygii أبي صوبته كوقيا أنا محيتايني wiilkayga 5 sano ayaad jirtaa 5 sanana xilli aad wax ku fahmi kartid ma joogtid anigana waxaan rabaa inaan horumar ku gaarsiiyo tacliintaada aan heer sare ka dhigo wax walba ha igu qaadato dadaal dheeraad ayaan samaynayaa sidaas darteed wiilkaygii aniga waxaan arkaa riyo aad u weyn oo weliba heer sare ah محيتاي رياضاس riyadaas waa riyo fiican anaan kuu sheegi doon شكتي haddaan kuu sheegaa wiilkayga waxaan arkay aniga magaaladeenna ninka ugu taajirsan oo ugu cilmi badan adigoo ayaan arkay waana samaynaa middaas riyo ayaan arkaa wiilkayga نوعه riyadaasoo ah adigoo noqday nin magac leh hanti leh kaale arag oo magaalada markuu yimaado laga soo dhowaynayo ubax guduudan loo daadinayo istaylka kaale aragaan ku dhahay meesha lagugu soo dhowaynayo raashinka siduu u buuxan ku dhahay waad yaabaysaa dadkoo dhan way faraxsan yihiin dad badan ma buuxan haa هذا ماشي ما جوغا سيدا maya wiilkayga looma baahna aniga meeshaas inaan joogo maxaan ka samaynaa meeshaas أبا هذا ماشي سيدي هذا جوغ أنا راشك يا سينا وأكتاي كعنتا ولا أنا راشين تكعونا إيه أبي دقيسي أنا قد توقيق لي وكلي وحروينا إيه سميس maxaa rabtaan kuu sameeyaa ballan waaye wiilkayga waa kuu samaynaa waxaad rabtid أبا أنا مرة كورك كورك بدنا شيء يا بابور أنت وعربا نلش مكانك إن أكون ولا نلش سؤاليات مع بدر صوبته عليك وحتى مكانك أنا مرة محدد إن مكانك نقدر نلش شيء سيدنا مرة وأبو أنا هيك حناخن لعقت شيء سيدنا إلا أنا وحكو برنا يا أنا أبا مرة أنا حناخن مرة
wiilkayga adiga inaad isdhigtid looma baahna aniga intaan noolahay adiga ayaa ii raaxaysanaya raashinkaan cun maya aniga raashin ma rabo inaan cuno sabab ma ku anficin miyaa raashinkan labadeena isla cunayna keliga ma cuna haafi haafa cunayna aabe adeer booliska maxay u xireen ii sheegna wax badan shabaqa booliska wuu ka badbaaday laakiin maanta wuu ku soo dhacay adeer qof xun miyaase wiilkayga qof xun iyo qof fiican farqiga u dhexeeyaa wuxuu yahay shabaqa booliska inaad ka badbaadid mar haddaad shabaqa boolis ku dhacdid markaas ayaad nin xun tahay shabaqa booliska haddaadan ku dhicin markaas ayaad nin fiican tahay wiilkayga aabba ada qof aad iyo aad u wanaagsanaa tahay waryaada ii daaya cunuga war waad ka badantiin ka lehda waryaa ii daaya cunuga war ka leh waryaa ka leha adigana wasaqyo muxuu ahaa may wiilkayga maya ka joog maya maya waa dhaafayaan kuwan ayagaa iska dhaafaya wiilkayga saasa yeelin maya 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 waxba ha soo qaadanin maya wiilkayga maya 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 iska daa midda ah wiilkayga midda haasa qaadan way dhimanayaan dadka haddii kale wiilkayga iska daa waa ku baryaa wiilkayga maya 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 maxaa soo qaadan rabtaa maya wiilkayga waa ku baryaa iska joog okay ashifa aawna intuu ka baxay aabe wiilkayga soo bax adiga aabba shiifa ayaa waay wiilkayga qof aan la arkayna ayaan la hadlahay waayo waddo kale oon kugu badbaadiyey ma haynin aniga markaasna satya maxaa badbaadiyey shifaa xilligaas wixii ka dambeeyeyna qalbiga ayaan gashtay aabbeyga dhaawac ka soo gaaray kirkeedka dartiisa ayuu mar walba uu weerari jiray waxna si fiican uma arki jiran hooshiistaa si fiican uguma soo bixi jiran taasna waxaa ku kaliftay intuu anigayga fikiraayo mar walban shaqada waa laga soo burin jiray warkaale adiga meeqa saaca lagaa sugaa raashinka inaa kejir mudan weenoo ma shaqaystaa iga raalli noqo waxyar xanuuna ahay orad ilaah maya waa ku shaqadoo helana ma u calfin jirin mar walba laga soo burin jiray xataa shaqooyinkana ayuu raadsaday shaqooyinkaasna ma uusan soo helin maadaama aabbahayga anigoo keliya garab siin jiray anigana waxaan ku fikiray asiga inaan garab siiyo meel garaasha ayaan shaqo ka bilaabay maqaayi xitaa waan ka shaqayn jiray laakiin maalin maalmaha ka mid ah anigoo shaqaynaya ayaa aabba igu arkay asigana aad ugu xumaaday wuuna niijabay wax walba aniga sababteeda ayay ku dhaceen sababtoo ah riyooyinkayga ayaan rumey waayey wax walbana way iga baaba'een aabe balan iga qaad inaadan shaqo aadaynin ha oyni aabbo waa ku baryaaya ha oyni aabbo wiilkayga aniga ma oynooye laakiin ballan iga qaad ii sheeg ballanta maxay tahay aabbo waxaa samay dhahdaa samaynaa ballan waay